qaatumada wanaagsan. Tuulo yar waxaa ku noolaa nin ka mida kuwa dadka geeya xajka iyo cumrada. Wuxuu deris la ahaa nin aan soomin oo salaadna tukanin. Habeenada ka mida wuxuu ku riyooday qof tuugaya. Waa ninkii deriska ahaa ee aan soomin salaadin oo doonaya in la kaxeeyo si uu cumrada u soo guto. Ninkii markuu hurdadii ka soo kacay wuu ku wareeray riyadaas la yaabka leh, laakiin ma danaynin arrinkeeda. Habeenkii kale bay riyadii ku soo laabatay mar kale. Wareerkii baa ku siyaaday ninkii. Wuxuu aaday nin ka mida culimmada caanka ku ahaa fasiraadda riyada si uu u weydiiyo fasirka wuxuu arkay. Sheekhii baa wuxuu ku yidhi, haddaad riyadaas ku aragtid hurdadaada mar saddexaad, deriskaaga aad, cumradana u kaxee. Xaqiiqdii habeenkii saddexaad buu ninkii isla riyadii arkay. Wuu baxay, wuuna raadiyey deriskii ilaa uu soo helay. Markii dambe wuxuu ku yidhi, waxaan kaa dalbanayaa inaad cumrada ii raacdo. Ninkii wuxuu dhahay, sideen u gutaa cumro anigoo aanan dukan? Ninkii wuxuu yidhi, haddaad doonayso anigaa ku bari kara salaada. Runtii ninkii wuxuu baray weysaqaadka iyo salaada. Ninkii deriska ahaana wuxuu joogtay 5 waqti ee waajibka ah. Kadib buu ku yidhi, innakeen aan soo cumraysane. Inna rabbaka yabsutu ar-rizqa liman yashaa'u wa yaqdir. Innahu kaana bi'ibadihi khabiiran basiira. Labadii nin way israaceen. Ninkii deriska ahaana wuu cumraystay. Inta aysan soo laaban wuxuu yidhi ninkii, ma doonaysaa wax kale inaad samaysid inta aanan laaban? Wuxuu yidhi, haa, waxaan rabaa inaan 2 ragco ku dukado maqaamu Ibraahim gadaashiisa. Ninkii deriska ahaa wuu tegay maqaamu Ibraahim. Isagoo tukanaya oo sujuudsan bay naftii ka baxday. Wuu la yaabay ninkii la socday, la yaab daran. Fikir buu bilaabay isagoo leh, sidee bay ku dhici kartaa inaan ninkan riyada ku arko oo aan halkan u soo kaxeeyo si uu cumro u soo guto oo uu bartan ku geeriyoodo isagoo sujuudsan, isagoo aanan dukan jirin, soomi jirin. Allay leh, arrintan sir cajiib ah baa ku hoos duugan. Markuu ninkii laabtay wuxuu gaaray gurigii ninkii deriska ahaa ee dhintay. Wuxuu su'aalay qoyskiisa wuxuu samayn jiray iyo xaalkiisii. Xaaskiisii waxay tiri, ninkaygu wuxuu caan ku ahaa sida la wada ogaa inuusan dukan jirin oo uusan soomi jirin. Laakiin waxaa jirta islaan duq ahayd oo deriskeena ahayd. Faqiir bay ahayd. Ninkaygu wuu u turi jiray, wuuna u geyn jiray quraacda, qadada iyo cashada maalin walba. Iyadana waxay ugu ducayn jirtay qaatumo wanaagsan inuu ku geeriyoodo. أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. haddaba walaalayaal, ruuxuu doona ha noqdee, Rabbi marnaba ma dayaco abaalka qofkii u dhimriya dadka jilicsan. U naxariista kuwiina dhiban si uu Alle inooga dulqaado culayska. Muuqaalkan waa wacyigelin guud ee sii sheer gareeya.